Allah u naxariistee waxaa magaalada Jigjiga ee xarunta u ah ismaamulka Soomaalida Itoobiya ku geeriyooday ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Khaliif Galeer. Haddaba daawadayaal, waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa taariikhda Allah u naxariistee Cali Khaliif Galeer. Cali Khaliif Galeer waxa uu ku dhashay magaalada Laascaanood ee gobolka Sool 15kii bishii Oktoobar ee sanadkii 1941, halkaas oo uu ku soo qaatay qaybaha hore ee noloshiisa dhallinyaranimo iyo waxbarashadiisa aasaasiga ah. Waxbarashada dugsiga sare wuxuu degmada Sheekh ku dhamaystay sanadkii 1962, heerka aqoonta maadiga ah oo uu qaybo ka mid ah ku soo qaatay jaamacado dibadda ku yaala wuxuu ka gaaray ilaa darajada PhD-ga, wuxuuna bare ka noqday Soomaaliya. 1963 wuxuu helay deeq waxbarasho oo ay siisay jaamacadda Boston ee ku taala dalka Mareykanka. Wuxuu shahaadada heerka koowaad ee maadada sayniska siyaasadda ugu qalin jabiyay sanadkii 1963. Buuggii uu darajadiisa aqooneed ku difaacanayay wuxuu qoray sanadkii 1971. Professor Galeer xarumaha uu ka soo howlgalay waxaa ka mid ahaa Macadkii Somali Institute of Public Administration, macadkaasi oo uu markii hore ka ahaa cilmi baare. Ugu dambeynna sanadkii 1973 uu ka qabtay xilka agaasimaha guud. Intii u dhaxaysay 1974 ilaa 1976 wuxuu agaasimo ka ahaa mashruucii sokorta ee Jowhar. 1976 ilaa 1982 wuxuu maamulayay mashruucii sokorta ee Juba. Xilalkii siyaasadeed ee uu qabtay Professor Galeer. Cali Khaliif Galeer wuxuu door weyn ka soo ciyaaray siyaasadda Soomaaliya. Dhowr sano kadib markii ay Soomaaliya xorriyadda qaadatay, ayuu si weyn uga soo dhex muuqday saaxadda siyaasadda, isagoo noqday wasiirkii arrimaha gudaha ee Soomaaliya intii u dhaxaysay 1965 ilaa 1967. 1980 ilaa 1982 wuxuu soo ahaa wasiirkii warshadaha ee dowladdii kacaanka ee uu madaxweynaha ka ahaa Allah u naxariistee Jaale Maxamed Siyaad Bare. Ka hor inta aan loo magacaabin xilka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sanadkii 2000, wuxuu noqday xildhibaan ka tirsan baarlamaankii lagu yagleelay shirkii Carta. 13 bilood markii ay dhisneyd xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa, xildhibaanada baarlamaanka ee xilligaasi ayaa kala noqday codka kalsoonida. 20kii bishii Agoosto ee sanadkii 2012, Cali Khaliif Galeer wuxuu ka mid ahaa xildhibaanadii loo doortay baarlamaanka federaalka oo uu ilaa iyo hadda ka mid ahaa ka hor geeridiisa. Sanadkii 2014, Cali Khaliif waxaa loo doortay madaxweynaha maamulkii la magac baxay Khaatuma ee gobolada Sool iyo Sanaag.